ما سنتين. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وزيرك وزارة الرمال قضاء الدولة وسائل الدولة قولات كهير شبيلة قدوميها قولك شبيلها دحيح حلبان دولة قولات كهير شبيلة maamulka degmada Balcad guud ahaan bulshada reer Balcad ay u kala saara bulshada reer Balcad maadaama caawa ay kala mudan yihiin ururka haweenka iyo ururka nadaafadda degmada ururka dhalinyarada ururka isboortiga odayaasha dhaqanka waxaa la hilmaami karin marti sharaf nagu qaaliyo nooga timid xamar ee ururka Soomaali asal waxaa ayagana la hilmaami karin fanaaniinta degmada Balcad ee Balcad Baan abwaanada macallimiinta xamiistaha kaabasaalaha muusikiistaha iyo dhammaan inta kale saraakiisha ciidamada iyo ciidamada bahda saxaafadda dhammaan salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh bacd salaam haddii ay jirto dad laga tagay sida qof igu qaaliya injineer Juulis oo kale raali naqdaano hilmaansho hadal kuma jiro caawa waa habeen taariikhi ah xaqiiqatan reer Balcad cawata habeen taariikhi u tahay reer Hirshabeelle habeen taariikhi u tahay ummadda Soomaaliyeed habeen taariikhi u tahay maxay la caawa kale waa habeen ugu qaaliya mudanna in la xuso intii qof Soomaaliyeed ee uu dhiig ku jiro waa waqtigii 58 sano waxaa laga joogaa xurnimadii aan ka qaadanay gumaystihii Talyaaniga haddii aan nahay koonfur iyo gobolada waqooyi oo ayagana calanka keeneen 26 juun ma xusin laakiin 1 luulyo isku darana maadaama 6 saac ku darsana hal saac oo dheeriye 26 juun ay nooga xisaabantaa waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan hambalyo ummadda ku nool deegaan weynaha Hirshabeelle ayagana waxaan leeyahay hambalyo ummadda ayagana ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe iyo qaasatan degmada Balcad ayagana waxaan leeyahay hambalyo 1 luulyo hambalyo waxaan rabaa inaan hadalkayga aan sii dheeraynin maadaama ay sugayaan ummaddan reer Balcad madax ku qaaliya ee ugu timid Hirshabeelle iyo gobolka Shabeellaha Dhexe isla caasimadii tahay caasimadii Jowhar ee Shabeellada Dhexe caasimadii Hirshabeelle nooga yimideen wasiirkayna wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose iyo gudoomiyayna gobolka iyo xildhibaano nagu qaaliya waxaan leeyahay dhalinyarada waa arkayseen suugaanta waxay cabirtaa waxyaabaha jira iyo waxyaabaha la soo maray iyo wixii dhici doona Allah subhanahu wa ta'ala ha og laakiin anaga waa raadinaynaa inaan wax ka tilmaano laakiin Ilaahay dib nooguma qoro wixii dhacay iyo wixii hadda taagan laakiin waa wax la cabiri karo Soomaaliya waxay soo martay ayadoo dhalinyaradeeda iyo da'deedaba looga gudbo wubiyada iyo meelaha biyo mareenka looga gudbay la yiraahdo biyahan ay taabaneen adiga seexaa ku kor socdeen Soomaaliya waxay soo martay xilli ayada awood leedahay wadamada Afrikana ay ka joogto meel wanaagsan laguna qiyaasay ciidamada lugta Afrika ugu wanaagsan xilli ahayn Soomaaliya maantana waxay taagan tahay in dugaagdana cunto waa xaalado kala duwan aan meel isla geli karin meel isla mari karin haddii aan gumaysigii shisheeye aan ka qaadana xurnimada ilama aha dhalinyaro yaryar oo anaga nala dhasheen amba aan dhalnay inay noo diidi karaan xurnimada nalama ahana weli dhiigiyaana kicin laakiin haddii aan ka xanaaqnay amba aan ka kacnay webi noogala gudbo ee aan weli ka kici laanahay in hal daqiiqo ee 1,000 qofood naga dhimato waxa la yaabo xaqiiqdii markaa Soomaali dib u fiiriyo waana wax
jiro oo taariikhiya wixii ka dhacay soobe ee ummadda Soomaaliyeed aanan qafna uga harin lagama xanaaqin laakiin gumaysigii beeriyo oo nagu fashay webiga oo nooga gudbay waan ka xanaaqnay ayadana insha Allah waa rajaynaynaa inaan waqtiyada kamida ka xanaaqi doono kana dhidhi doono insha Allah sidii ay fanaaniinta iyo balcad baan ay ku cabireen xilli dhiigana kici doono dhagaxa ku dagaalami doono waa gaaraynaa doo Allah idin insha Allah waxaan rabaa hal eray oo ka jeediya meeshaan ilaahay qara ka siiyo adeerkay Ibraahim Dalfo oo ahaa wadadan isku xirta Jowhar iyo Xamar xaqiiqdii ani maanan ogeyn cawada ka hor in lagu dhisay awr laakiin maanta isjiidii tareen la haysana wadadan dhisi laana waxa la yaaba naftirkeeda isweydiin mudan dadkii waqtiga waa waqtigii samaankii waa samaankii laakiin dadka isbedelay haddii awr dhagaxa lagu soo raro lagu dhisa wadada arkayno ee intaasoo sana burburila maxaa filaynaa haddii aan dhahno tareelada aan leenahay iyo taraagada aan ku raran dhagaxyo haddii aan dhahno wadadaas amay naga burburtaa ma aaminsani maxaa yeele tii awrkiyaa burburi weysee mid gawaari lagu dhisay iyo makiinada casri u malaymaa inay burburaysa ayadana waxaan rajaynaynaa insha allahu oo aan ka bilaaba aniga nafsadayda iyo ummadda reer balcad inaan waqtiyada ka mida samayn doono wax ummadda ay la yaabaan waxaasoo ah inaan wadadii annagaba ku filnaano oo dhahno war annaga waa keensana garsaale ee dowladihii dhammaystirta inaan dhihi doonaaba aaminsana laakiin waxaan is leeyahay hay-ado deeqa bixiyo iyo dowlado dhaqaale haystaa waxay ballan qaadeen waddada inay dhisayaan laakiin waxaa idiin sheegaya inaysan wax noo dhisaayan aysan jirin inaan annaga isku duubanno annagaa isgarab istaagno annagaa u diyaargarowno annagaa aan dhisanno cid aanan ahayn wax ka sugi mayno maxaa yeelay xilliga la ballan qaada ilaa xilligan waxaa dareemaa inay u dhaxayso ugu yaraan 7 bilood ama 8 bilood ugaaskaa sheegay maalin walba waxaa noo yimaadaan qolo caddaana iyo injineerro waxa dhahay wadda cabiraynaa wadnayba naga soo ridoona waxay dhaheen magaalada dhan waa dumihaynaa laakiin wixiiba nooma hayaan xiina dushaan waxaan ka cabsannaa mararka qaarkood inay guri la'aanana dhigaan wadda la'aana nagu qabsato laakiin ka yeeli mayno wasiirka waa maqlaa guddoomiyahana waa maqlaa wax cadoo la taaban kara hadday la yimaadaan waa soo dhaweynaynaa waa la shaqaynaynaa haddaysan soo dhaweyna meeshooda iyo meel alla soo saas maa reer balcad waa maasantihiin maadaama codkiinna kuwaad idinkana ay wakiilateen waxaan rabaa inaan meeshaan aanan hadal badan ka soo jeedin aanan ku sii darin waxaan leeyahay dhallinyarooy SYL 13 qofood oo qofka ugu weyn yahay oo 38 sano inuu jiro aaminsanahay amba ka yaraay ayaa waxay dhaliyeen in Soomaaliya xur noqoto calan laga taago waxaa daaya maqlaayay shakhsi ayaga kamide inuu ahaa Cabdirasaaq Xaaji Xuseen inuu Cabdullaahi Ciise ay ma kala qaan laakiin labadooda qofkooda u ahaa laakiin waxa u badan inuu ahaa ra'iisul wasaarihii hore Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ninka warqadda dhunjiyay nin dhalinyaro oo Soomaaliya oo nafsadiisa iyo dadkiisa u hura nafsadiisa u ahaa xaqiiqdii uma dhimanin warqadii uu dhunjiyay waxa uu dhintay 2016 taqriiban ilaa 18 ilaa 18 inta u dhaxaysa aaminsanahay xilliga uu dhunjiyana da'diisa ma dhamaynin 30 sano amba 40 sano ma dhamaynin dadka waxaa loo dhintaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajasha uu ku qoray iyo waqtiga aan leedahay loo dhintaahe war waxaan ku soo koobaa warkayga 4 canug oo dhalinyaro ah inay noo diido inaan qudaartayna guranno inay noo diido inaan caanahayna dhoofsanno inay noo diido inaan xoolahayna daaqsanno ee bil walba oo cirka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka keenay sakad noogala dhigo ee laga deyrihaynin xitaa hal koombo galeey qafkii 10 loor u baxday hal loor laga qaatay qofkii hal loor u baxana 10 koombo laga qaatay maxaa noola reebtay beerihi ma tacba karno ma fala karno ma daaqsa karno ma gada karno maalin walba lacag naga rabaa baade hadda ka hor waxaa maqlay xilligii maxkamadihii ay wadanka qabsadeen raalli aada xilligii maxkamadihii wadanka qabsadeen aan qola shirabtay oo ahaayeen nimankii hogaamiye ku-xigeenka shaqeynaya la shaqeeyay waxay dhahan xarfaan ka xuubsataa xaakimiinta leedihiin marka waxaan aaminsanahay inayna saka ahayn inay baatuugnimo tahay laakiin loogu soo gamada bilsako
laba iyo tobanka bilood ilaahay subxaanahu wa tacaala hal bilow seke ka dhigay ee laba iyo tobanka bilood seke lagama dhigin waxaa idin leeyahay marka in maalin walbo canugiinna wiilkiinna waalidkiin walaalkiin saygiinna amba xaaskiinna waddadan lagu dhibaateeyo annagana aan ka hadli weyno waxay tahay wax reer balcad ku cusub wax reer shabeellada dhexe ku cusub dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe waxaa ayagana ka codsanaynaa anigoo ku hadlaya magaca maamulka iyo dadka degmada raalli kama nihin soo saas maa weli maqluumaya cawada shaamaa laga cabsada raalli ma ka nahay raalli maa ka nahay maya raalli kama nihina mayaa dhahna walba warkaa idin saxo yaana noola qabsan annage raalli ma ka nihin soo maahan waa maasantii waxaan rabaa wasiir iyo guddoomiye waxaan diyaar u nahay saacad walbo iyo wakhti walbo inaan ciidamada la garab istaagno wixii waajibka nagu ahaa inaan dhiigga u miirno inaan biyo u diyaarinno inaan raashin u diyaarino maxaa yeele caawa waxa laga hadlaya waa gumaysi waxaa ku jirno aad dareemaynina waa gumaysi asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu